السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa Somali My TV Network. daawadayaashayada aanu jecelnahay barnaamijka toddobaadka iyo Somali My TV ayaa waxa uu ku saabsan yahay qalin jabin ka dhacday masjidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis. qalin jabintaasi iyo xafladaasi waxa inoo haya Liban Al Hussein oo ka mid ah wariyaasha Somali My TV. Liban, adiga le waay. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena toddobaadka iyo Minnesota. daawadayaal barnaamijkeena toddobaadka iyo Minnesota oo alabaad ka daawataan telefishinka Somali My TV Network oo ay ugu talagaleen daawadayaasha Somali My TV inay kaga xaqabtiraan dhacdooyinka ka dhaca gobolkan Minnesota. waa gobolka ay ugu badan yihiin Soomaalida ay ku nool yihiin dalka Mareykanka. barnaamijkeena toddobaadka iyo Minnesota oo calabaad ka daawataan telefishinka Somali My TV oo nambarkiisu uu yahay janaalka 16 ee MTN. barnaamijkeena toddobaadka iyo Minnesota ayaa waxaanu ku eegi doonaa halganka ay ula jiraan waalidiinta Soomaaliyeed caruurtooda ku dhaqanka diinta Islaamka iyo barashada Quraanka maadaama ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka oo ah dalka ay ugu yar yihiin muslimiinta. masaajidada gobolkan Minnesota ayaa aalaba ku dadaala sidii ay u tarbiyeen lahaayeen caruurtan oo waalidiintooda mar walba ay keenaan masaajidada. qof bilaadanka maarta dhar iyo waxaas kuma sheegi kartid iimaankiisana qalbigiisa ugu jira moogtaa soo marka qofka walaalkaaya ina dharkiisa ina wax u sheegtid waa la rabaa laakiin ina adiga hadda adiga wax yar daamtid ina adiga ka sii dartid maaha oo maskaxdaada sii xidhid because adduunyada way furan tahay ilaahayna adduunyada wuxuu ku keenay ina maskaxdaada u isticmaashada oo furtid oo dadkana wax u sheegtid sida fiican soo marka ninka walaalka weyn adiguna adlaba fiicanta ma sha Allah walaala wadanahay marka ina iswada raacno maanta masaajidka isla tagayna kana. haddaba Somali My TV Network ayaa waxaa dhawaan booqasho ku tagtay masaajidka Darul Hijra oo ku yaal koonfurta magaalada Minneapolis halkaasoo lagu qabtay xaflad qalanjibin Quraan oo loogu sameeyay arday ka qalanjibiyay. sameynayna insha Allah taala Sheekh Cabdiraxmaan Rawaad baan u yeerayaa si uu maaragtay uu shahaado u guddoonsiiyo walaalkan Cabdiraxmaan insha Allah. takbiir takbiir xafladaasi qalanjibinta ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin aad u fara badan iyo ardayda wax ka barata masaajidka Darul Hijra. isla markaasina waxaa halkaasi ka hadlay imaamka masaajidka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. مركه هور إلهي بمهد كله سبحانه وتعالى. مركه الله بعضنا إلهي بمهد كله سبحانه وتعالى. مركه صدحنا إلهي بمهد كله سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى إنه إنقدر مسلمين هل كان يسوي كاني meeshan wada joogno ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadda isaga ayaa iska leh wuxuu ilaahay mahadda u kula inuu inaga dhigay muslimiin alxamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah inuu ilaahay inaga dhigay muslimiin islaamka waa nicmo weyn oo Allah uu bixiyo subxaanahu wa ta'ala marka Allahaasaa mahad iska leh subxaanahu wa ta'ala xaqiiqatan islaamku waa nicmo qaali ah لذلك قفكو إنه مرة فربنا الإسلام كان نعمة قال الله سبحانه وتعالى والشكر يدع العلي أيا الله باهي هاي وحل إلى هذا عمر بن الخطاب وحول أخاف من الإسلام من لا يعرف الجاهلية إسلام كوحن عقد قبا أما عبس قبا إنه دبته وجيزته قف جاهلية ذا عن صومر الدين لأنت محاجر قفكم مركو جاهلية ذا الدين لأنت صومرة أو إسلام كيماده معانك يدرن كإسلام كأيو قيمين يا
laakiin markuu iskaga dhasho waxa laga yaabaa inuu macaanka qiimeyn waayo waa nicmo min nicam illaahi islaamka alla uu nasiiyey subxaanahu wa tacaala inaan marka nicmada intaan garanno ku dadaalno wax laga maarmaana weeye waxaan kaloon rabaa inaan u mahad celiyo anoo u iman doona muxuu ahaa ardayga wanaagsan ee maanta qalin jabiyey waalidka ardaygan dhalay waalidkanu oo intuu la soo survive garoobay in badan waddo dheer la soo maray la soo qaxay maraykanka la yimid maraykanka keenay haddana ku dadaalay isagoo maraykan jooga inuu noqdo wiil yar oo ay dantatigiisii iyo islaamnimadiisii iyo diintiisii haya oo xifdiya iskuul aada masaajidkana ku xirnaada ugu dambayntiina uu ilaahay subxaana wa tacaala u waafajiyey inuu qur-aanka dhammeeyo waalidkaasu aad bay u mahadsan yihin xaqiiqatan shaqo wanaagsan bay qabteen shaqo fiican bay sameeyeen marka ilaahay subxaana wa tacaala waalidkaa fii miisaan xasanaatihim ha ugu daro waxaana doonaynaa waalidiinta kalena inay ku daydaan inay sidaasoo kale u ogaadaan inaysan mustaxiil ahayn in halkan lagu noolaado isagoo diintii la baranayo in halkan lagu noolaado isagoo islaamkii la haysto in halkan lagu noolaado islaamka muslimiin la ahaan karo in da'yar yar halkan lagu korin karo akhlaaqdooda iyo diintooda ay wanaagsanaan karto marka in ay waalidka kalena u noqoto ku dayasho fiican waalidkaasu marka aad buu u mahadsan yahay gaar ahaan hooyada aan ogahay culayska ay marar fara badan dareento subaxii culayska ay ku hayaan markay u jafayso ama u kicinayso dugsiga marka ay marar fara badan rabto inay qur-aanka akhriyaan ay ku celceliyaan aad bay u mahadsan tahay waxaa kaloo xaqiiqatan mahaddaa iskale qayb weyn mucallimiinta laga yaabo in fara badan oo ka mid ah muxuu ahaa gaar ahaan communitygeennu ama jaaliyadeennu inaysan aad u fahamsanayn dowrka iyo kaalinta ay macallimiintu u hayaan maxaa jira macallimiintan sabtida iyo axadda laga bilaabo xilliga 6 subaxnimo ama 6 in the morning ilaa laga gaaro laga yaabo muxuu ahaa 6 in the evening oo maqribkii ah intaas laga yaabo inay heegan kuu yihiin oo aad qur-aankii ilmahaaga aad barayso ilmahaaga 3 iyo 4 aad guriga ku hayn laadahay ayaa iyagoo boqolaala loo keenayaa markaasay maskaxda ka xanuujinayaan marka macallimiinta u dulqaadanaysa karti fara badan gelinaysa aan hubno 6 saacadood ama 7 saacadood ama 10 saacadood inta ka soo gashay dhaqaale ah 3 jibaarkeed inay shaqo dibadda ka samaysan karaan laakiin doonaya inay communitygooda iyo jaaliyadooda iyo ummadooda u celiyaan wax mararka qaarkood waalidka $30 ama $20 la weydiiyo ayaa mararka qaarkood laga soo saari waayaa oo aan dhaqaale asal ahayn laakiin hadafku uu yahay inay u noqoto qayb yar oo ka mid ah transportation iyo waxyaabaha basic ah ee xataa qalinka iyo waraaqda iyo muxuu ahaa paperka ilmuhu ay ama jaxjaxyaan ama halaynayaan iyo iska noqonaysa marka macallimiintaas iyaguna way mahadsan yihiin insha Allah tacaala waxaan leenahay jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum haddii xataa aad ka weydaan mararka qaarkood communityga oo dhan waad mahadsan tihiin in ka mid a ayaa idin odhanaysa iyaguna aad bay u mahadsan yihiin shaqada fiican ee ay muxuu u hayaan wiilkeennaas cabdiraxmaan iyo kuwa fara badan oo la mida wiilal iyo gabdhaba oo iyagu soo saarayaan iyagu hayaan iyagu tarbiyaynayaan iyagu qur-aanka barayaan aad bay iyaguna ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo mahadsan talaba ardada maxaa jira wiilasha iyo gabdhaha labaduba kuwa da'da waaweyn iyo da'da yaryar cabdiraxmaan oo hadda qalinjibintiisa u fadhina ama qur-aanka inuu dhammeeyey hadduuna heli lahayn marka team iyo group students ay wada yihiin oo marka qaarkood tartan iyo competition iyo xiise gelinaya mararka qaarkood markuu yimaado uu ka helayo wax fara badan oo helb iyo caawimaada uu ka helayo in fara badan oo ka mid ah sooranayo wallahi hebel ayaa muxuu ahaa aad ugu tagaysaa dugsiga qur-aanka heblaad ugu tagaysaa dugsiga qur-aanka saa darteed marka la tartan ka badi ardadaasuna aad baad u mahadsan tihiin yani inaad timaadaan idinka laftiinnu oo mararka qaarkood kuwa yaryar oo idinka oo kaleeta ah ayaa laga yaabaa in laga laayahay kuwa yaryar oo fara badan oo idinka oo kaleeta ah ayaa waxay u badan tahay in laga laayahay muxuu ahaa inay yimaadaan masaajidka marka idinkuna aad baad u mahadsantihiin da'diinaa yar jazaakum allahu khayr baaraka allahu fiikum waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo marka haddana mu'asasada aan joogno daar ilhijra maamulkeeda iyo dadka muxuu ahaa wada iyaguna aad bay u mahadsan yihiin xaqiiqatan maxaa jira